labadan gabdhood ee Soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan waa inay booliisku u wacaan sidoo kalena ay fariintan tusiyaan haddii aysan tusin waayo labadan gabdhood group ay sawirkooda soo dhigeen laakiinse groupkii sawirka ayaa laga soo qaatay haddii aad aqoonsatay gabdhahan Soomaaliyeed waxaan rajeynaa familykooda ayaga kulli badqabkooda iyo sidoo kale amnigooda in hadda laga taxadiro sababtoo ah labadan gabdhood sawirkay soo dhigeen guri ayagoo raadsanayo group guryaha laga raadsado oo hadde ku yaala magaalada Umeå Sweden ayaa waxaa dhacday sawirkooda la soo qaato group islaam naceebka wax kasta lagu sheer garayo la soo dhigay gabdhahan madaxooda waxaa dul saaray 3,000 oo Swedish krona xataa ilaa 4,000 ayaa loo ballan qaaday dadka kumentiga ka bixiyeen marka gabdhahan Soomaaliyeed waa inay booliiska sida u raqsiyaha badan u sheegaan madaxooda waxaa la saaray lacag in la dilo ayaa la rabaa magaalo aysan degnayn ayay tageen guri ay ka raadsanayaan sidoo kale waxbarasho ay u tageen waa isla soo dhaaftay dadka wax baranayay dadka horumarka sameynayay dhalinyaradii waa isla soo dhaaftay. Du sa ju till och med att en somalier var mer svensk än vad jag är. Hur kan ni vara så här hjärndöda? Ganska många somalier som går på KTH, okej? Du får nog fact-checka det. Cunsuriyiinta doorashada inta ay ku jiraan waxay rabaan marka islaam naceebka inay heerka ugu sarreeya gaarsiiyaan dil xataa ay gaarsiiyaan gabdhahan Soomaaliyeed muslimka quruxda badan waxaa la rabaa in nolosha la dhaafsiiyo waa heerka ay marayaan kuwa guryaha ta fadhiyo oo hadda depression ku dhacay oo cunsurnimada yacni dhiigga ka gashay hadda waxaa soo baxay xisbiyo yaryar ah oo cunsurnimada inaba caadihan Soomaaliya si u caynayaan wax kala waa waxay rabaan inay soo galaan dowladda ay dhibco helaan doorashada maadaama socto ay hadda kor isku soo qaadaan dad badan ay helaan oo cunsuriyiin oo ay ku ra'yiya sidoo kale xamaasad yacni nacayb dad qaasatan dadka Soomaaliyeed ay hadda focuska ay u saaran tahay marka waxaa rajeynaa reer Sweden inay horta foojignaadaan meel kasta joogtiin sababta cunsuriyiinta nacaybka lagu beerayo maalin kaste midaa media soo fadhiisanayo oo hogaaminayo xisbi hadda soo baxayo amase kuwii hore u jiray ee cunsuriyiinta ahayd marka waxay leeyihin Soomaalida dalkan wax mutarayaan saas waaye way imaadaan lacag iska qaataan oo canshuurtii anaga bixin canshuurta iska qaataan meelaha iska fadhiyaan dukaamada iska fadhiyaan kafee cabayaan marka nacaybka iyo yacni cunsurnimada heerka ugu sarreeyo Soomaalida dadka wax qabsada xataa looma jeedo dad waxaa loo jeedaa masaakiina oo hadda shaqo heli karin sidoo kalena rafaad iyo nolol xun ku nool يعني دروت يعني أي جيسي إن أي قاتان يعني عيرتو كله واحد إسنا قبسي كرين ددوا يلا جرو واحد قبسي كرين سيزو كله يعني شغل لو أقولين وهديها رسالة حتى على هي خبرة ملهيد ملوصينا مركز دولة دينا شقة سميسة هي ذكرنا ذكر شقالي سيسو